Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Language College Hargeisa. Here talking to you is teacher Warsame. I am one of the teachers in Language College Hargeisa, and today we have another lesson, and we are going to talk about let's talk about it. The topic is let's talk about it. Aynu ka wada hadalno. Let's talk about. Let us wada oran kartaa, but we said let's talk about it. Aynu ka wada hadalno. Who's going to talk about it? I and you. I and you. Me, myself, and you are going to talk about it. Mostly Somali people like to talk, and that's one thing that we are actually in. I don't know, is in our blood somehow. We like to talk. So marka, if you like to talk, and you like to talk English, and you like to speak in English, you need to talk. Today we are going to talk. dhammaan arday maanta waynu hadli doonaa saan hore inigu sheegay waa anigoo macalin warsame ah ka soo hadla Hargeysa maanta casharku waa live si toosan waad daawan doontaan ha iloobin inaad share gareysaan like gareysaan and do not forget to tell me your name where you are basically maanta kuma jirto magacaaga noo sheeg but waxaan ugu jirtaa tell us your favorite city magaalka aad ugu jeceshahay noo sheeg so marka basically magacaaga ii soo qor salaamta waa alxamdulillah alaykum assalaamu alaykum waxa ku xigtaa xagga joogtid imika naga daawanaysa maaha xagga aad ka timid it's not where you from is where you at xagga joogtid hadda weeyaan maaha meesha aad ka timid it's not where you from is where you at xagga joogtid hadda that is the most important and inta noo muhiimsan anaga waa inta xagga aad joogtid wherever you are in the world meel kastoo dunyada aad joogtid bismillah let's talk about it aynu ka wada hadalno maxaynu ka wada hadlaynaa talow maxaynu ka wada hadlaynaa what are we going to talk about maxaynu ka wada hadli doonaa talk about your hobbies ardayda inta badan waxay weydiiyaan hobbies waxay hobbies ereygan laftiisa af Soomaali baa lagu yiraahdaa laakiin habkan looma yiraahdo Soomaali waxa lagu yahay hobby bay yiraahdaan hobbigaaga muxuu yahay maxaa jeceshahay inaad noqotid what would you like to be in the future and what would you like to do mostly maxaa jeceshahay Soomaali waxa lagu yiraahdaa hobby bay yiraahdaan laakiin English hobbies bay noqonaysaa HOBBIES or hobbies talk about your hobbies maxaa jeceshahay inaad noqotid what would you like to be First of all, I would like to be a zoologist. And somehow I like to learn about animals. I would like to be a zoologist, a professor zoologist. Midda ku xigta waxa weeyaan talk about your favorite city. Ka hadal magaalka aad ugu jeceshahay waa magaalka. City waa magaalka caasimadda aad ugu jeceshahay. City magaalka ugu jeceshahay. What city do you like? It's not what city you're from. Maaha meesha aad ka timid. Magaalka aad ka timid maaha. Waxa weeyaan magaalka aad jeceshahay. What favorite? naftu way jirtaa meel ay ka heshay inay u dalxiis tagto amba adoo arkinba aad ka heshay amba maqlaad ku maqashay way jirtaa so marka waa xageed ka heshaa talk about waxaad ka hadashaa talk about something you don't like mar walba positive kanu eegnaa alxamdulillah laakiin sometimes you have to look at the negative way dhanka kale waa inuu eegtaa marka qaar there's things that we don't like and things that we do like basically waxa jirta waxaan jecelnahay iyo waxaan jeclayn ama yaraatay inaan ka helinba talk about waxaad ka hadashaa something wax you adigu like to read maxaad jecesha inaad akhrisid alxamdulillah I like to read Quran I myself as macalin warsame I love to read Quran I like to read Quran all the time I love to spend my time reading Quran okay arday soo dhawaada marka horta waan soo dhaweynaa marka koowaad do not forget to tell us where you are ha iloobin inaad noo sheegtid Okay, from Sweden. Sweden bay joogtaa Amin Ar wuxuu joogaa Sweden. Karim Saeed waxay tiri joogta Turkey. Mohammed Dijama wuxuu yidhi waxaan joogaa Djibouti masha Allah nice place. Assalamu alaikum from Sweden. Qardo kala socda masha Allah ustaad Adam Masan Abdullahi. And thank you very much my day student. And haddii aan hoos ugu yar socono Salat Samadon wuxuu yidhi assalamu alaikum from Sudan masha Allah Sudan Mohammed Deeq wuxuu yidhi I'm from Hargeysa basically Hargeysa iga daawanaya Mohammed Deeq Tahliil Iman wuxuu yidhi I'm from Somalia alxamdulillah Somalia ka timid laakiin where are you xageed hadda iga daawanaysaa ani casharkaygan xageed iga daawanaysaa masha Allah karim waan ku salaamay my name is Mohammed I live in South Africa masha Allah ما شاء الله اسمعي كده الحمد لله مقدشو محمد حسن بري وحجي المقدشو كان داونيا آمنة علي hey everyone from UK ما شاء الله from UK بعد كده داونيا especially in London that is my old city in London Dahir
wuxuu yidhi daahir wuxuu yidhi borama maasha allah borama nairobi yuu igala hadlayaa amir jigjiga uma manal waxay tiri I'm from Germany. She's from Germany nice place. Mohammed Tayyib wuxuu yidhi Somaliland, but where in Somaliland? Where are you watching us? Where are you watching us? Hageen naga daawanaysaa. Ayub wuxuu yidhi from Muqdisho maasha allah Muqdisho nice place. Mohammed wuxuu yidhi macalin Ibrahim wuxuu ka daawanayaa Garowe buu naga daawanayaa ardaygaasina jazakallahu khairan. Thank you very much all my dear students. Talk. We all like to talk, but what are we going to talk about? That is the main thing. What are we going to talk about? waxaan jeclaynaa hadalna laakiin maxaa laga hadlaya la dhurtami maaye la hadli maayo uun hadalku socon maaye maxaynu ka hadalnaa? What should we talk about? We are going to talk about your hobbies. idinka hobbigiina ka hadlayna waa number 1. This is number 1. Number 2, number 3 and number 4. afartaasaan maanta ka wada sheekaysan doonaa I and the students, aniga iyo ardaydaba. Marka let's talk about it and ka wada hadalna. Bal ardayay bal waxaad ii sheegtaan maxaa jeceshiin inaad noqotaan? Tell me what would you like to be? anigu saan hore iigu sheegay I would like to be a sociologist and I also like to be which I am actually, which one of my hobbies, I like to be a teacher, which I am actually, alhamdulillah. And the other one that I like is I would like to be a sportsman, even though I don't look like a sportsman, like I like to be a sportsman. Talk about your favorite city. ka hadla magaalka aad u jeceshihiin. Talk about something you don't like. waxaanad jeclayn ka hadal. Something that you don't like. waxaanad jeclayn. Talk about something you like to read. ka hadal waxaad jeceshiin aad akhrisataan amba buug aad akhrisataan. marka waxaynu ka horeynaa ardayda insha allah kanaan ka horeynaa kan. This is number 1. This is number 2. This should be number 2 and this should be 3 and this should be 4. mid walba muxuu ku bilaamayaa? bal eega wuxuu ku bilaamayaa talk. hadal. If you want to speak English, you need to talk. You ain't gonna be speaking English if you're silent. haddaad aamusan tahay kuma hadlaysaa English, you're not speaking. If you read, you're not speaking. And if you watch, you're not speaking. maxaan kaloo if you listen, you're not speaking. But you need to talk to speak English. inaad ku hadashaa English waa inaad hadashaa. To speak English, you need to talk. What does a little child do? ilmaha yar naqan muxuu sameeyaa? uu hadlaa. He doesn't even know how to write. ma yaqaana saa loo qoro, ma yaqaana saa loo akhriyo, laakiin muxuu sameynayaa? wuu ku hadlayaa, luqadii buu ku hadlayaa. hadda maba garanayaba saa loo qoro wax. marka insha allah waan ku hadli doonaa maanta waxaan isku dayaynaa ku hadashaan. hadalkiinu waa sidee? ininku waad qoraysaan, anaa inii akhrin waxaad qoraysaan. Even though I can't read all of you, dhammaantiinna ma wada akhrin karayo, laakiin maxaan doonaynaa bal soo qora insha allah ba isku daya. Inshallah, isku daya. Mustafa Bile wuxuu yidhi I am from Hargeysa. MashaAllah, my dear student, nice to meet you. Amina, yes, Betty. Okay, I like to be an engineer. Mohammed Deq, I like to be an engineer. maxaad oranaysaa? horta vowel word baa ka horeysiisay. is a vowel word. Engineer starts with a vowel word. so marka waxaad oranaysaa an xaggaad kan. alhamdulillah, your English is nice. maxaad oran jecesha? engineering. Okay, what kind of engineering do you like to be? Amina Ali, talk. hadal Amina, you need to talk. waa runta waa inaad hadashaa. cabdiweli wuxuu yidhi am hobbies ma oranaysa myde. am hobbies ha oran myde. waa your one ku yidhi adiga inama lahaanshahaagiya. don't forget it's possessive pronoun. waa adiga lahaanshahaaga. maxaad oranaysaa? my baad oranaysaa. my hobbies. president of Somalia. maasha allah ilahay kula garab galo. my dear student, thumbs up. ilahay ha kaa dhig madaxweynaha Soomaaliya. ilahay kula garab galo. that's a good thing. Amina Ali, speak. that's true, speak. Sahra Abdullahi waxay tiri I would like to be a teacher. I would like to be a teacher. Her hobbies is to be a teacher, just like Ma'alim Warsame. Thank you very much. I hope you're going to be a good teacher. Okay, and who else? My hobbies to reading books. What kind of books? Mustafa Bile, waxay tiri my hobbies to reading books. But what kind of books? Bugaagtu wada badan yihiin. But what kind of books? 2, I like Kismayo. Deeq Hussein wuxuu yidhi I like Kismayo. Deeq Hussein Barre wuxuu yidhi I like Kismayo. Deeq uu naga horeeya wuxuu marayaa su-aasha labaad. deeqba su-aasha koowaad horta baan isla yar aragno. Let's first su-aasha koowaad baan horta isla eegaynaa. All students, the first question, first thing first. maxaa la yidhaha wixii say u kala horeeyaan? First thing first. shayba shay uga horeeyo. Okay, doctor, masha Allah, doctor. All dadkeena badan waxay jecel inay noqdaan dhakhaatiir. Doctor. ardayha iloobina sheegaraysaan. do not forget to share the video and also comment. and also comment wax kale maaha, waa wax adiga ku wanaagsan oo waa ka qayb qaadista casharka. this is a free lesson. waa cashar bilaasha
oo free oo language college kugu talagalay waliba macallin Mahdi thanks to macallin Mahdi nagu talagalay marka insha Allah waxa weeyaan kala faa'iideysano I myself macallin Warsame is here for you and language college will always be waxay tiri Karima waxay tiri I like to be an army mashallah you like to be a soldier army means a soldier you like to be an army you like to be a soldier in another way she likes to be a soldier Abdurrahman F wuxuu I would like to be president of Somaliland Allah kula garab galo my dear student president of Somaliland ilaha kula garab galo my favorite city is Hargeysa Mustafa Bili wuxuu aniga magaalkayga ugu fiican waa magaalada Hargeysa Salaad Samadoon wuxuu yiri my teacher I would like to be a pilot mashallah pilot inaad cirka martaa jeceshahay Soma drive people around in the sky that's really good rather driving them on the land you like to drive them on the sky intaad dadka dhulka wadwadi lahayd baa jeceshay inaad cirka wadwadid mashallah that's really good pilot ilahay pilot ha ka dhigo Hassan Dahir waxaad tiri I would like to be PhD holder near time inshallah the near time inshallah wali buu soo dhaweeyay Hassan wuxuu the near time inshallah noo ku daray biidnillah anigana biidnillah man kugu darnay my dear students Abdul Rasaaq wuxuu I would like to be a manager but what kind of manager would you like to be a company manager would you like to be a team manager what manager would you like to be would you like to be your own company manager Abdul Rasaaq maxaa jeceshay ma in lagu dhiibo mise inaad asliyan ahaatid manager isaga loo shaqeynayo mise waxaad jeceshay inaad noqotid what kind of manager would you like to be mashallah alhamdulillah horta su'aalahan waxay leeyihiin faahfaahin dheeraad ah laakiin faahfaahinta dheeraadka hadda uma baahnin alhamdulillah ana inta inisiir faahfaahinaya thank you very much madis horta waan mahadcelinayaa dhamaantiin Saeed wuxuu yiri hey everyone I'm from South Africa I would like to be a sheikh mashallah sheikh waa ka ugu wanaagsan ba alhamdulillah sheikh waa ka ugu wanaagsan ba hada sheikh noqotid diintii Ilaahay iyo subhanahu wa ta'ala u dagaalamaysa mashallah aad baad mahadsantahay thank you very much sheekhnimada way fiican tahay waa waxaan inta badan aynaan arkayn laakiin sheekhnimada we would like to be sheikh all anu jeclayna wada hadno a businessman abwaan wuxuu yiri abwaan gataa yar wuxuu yiri I would like to be a businessman anu waxaan jeclaynaa ahaado a businessman okay bal waxaynu u gudbaynaa Zaadiya Ali Mubarak waxay tiri my hobbies are reading Quran alhamdulillah and listening newspapers do you listen to the newspapers or do you listen to the news ma waraaqaha dhageysataa mise warkaad dhageysataa waayo xagga waxaad ku qortay my hobbies are reading Quran and listening newspapers hadaba aan ku saxo my dear student waxaad tidhaahdaa my hobbies are reading Quran and listening with the ing news kun ku daa papers ka reeb reading papers de labada listening ta ka daa papers de labada aad baad u mahadsantahay ardayda Fariid ma tahay ma sha Allah I would like to be a teacher Muhammad said I would like to be a teacher Muhammad Muallin baa kugu qoran ba Muhammad Muallin baa kugu qoran thank you very much hadaba su'aashana labaad baynu gudbinaa ardayda sheegareeya fadlan sheegaree share the videos it's very important for us to share the videos and also comment and share it marka talabaad baynu gudbaynaa talk about waxaad ka hadashaa your adiga favorite city horta ana ugu horeynaya somehow my favorite city is Makkah ugu jecel anigu even though I haven't seen it but I love it Makkah jecel anigu anu waxaan jecelahay Makkah tago Saudiga ku taala in Saudi Arabia Makkah la yiraahdo ma sha Allah aad baan xagga waan jecelahay horta my life actually myself aniga myself Makkah iska hadlo Makkah jecelahay my secret meeshada labaad waxa Miami meesha Miami la yiraahdo but I would like to be at Makkah jecelahay one day I will go inshallah talk about your favorite city magaalka aad ugu jeceshahay daba ka soo hadla okay my favorite city is Muqdisho baytir ma sha Allah Khadija Muqdisho Allah barakeeyo Amina Ali listening weeyaan Ayub wuxuu yiri I would like to be a father ma sha Allah Ilaahay aabaha ka dhigo Ilaahay baa bixishay waladka Allah bixiyo waladka Ilaahay baa bixiyo marka waa mulkiga Ilaahay bay kamid yihiin marka Ilaahay ka dhigo I would like to be engineer Abdul Fattah thank you very much Sha wuxuu yiri ardaygaasi Shaka Dahir wuxuu yiri hey teacher how are you I think you're fine yes I am fine alhamdulillah and I hope you are too as well Said wuxuu yiri thanks Mr. Warsame I would like to say okay thank you very much aad baad u mahadsantahay adiga my favorite city is Makkah Muhammad deeq baan isku midnahay Makkah anna Makkah jecelaysna Makkah jecel Muhammad we are the favorite we have the same favorite city somehow
I want to be a doctor. إلهي هكذا. I would like to become a parliamentary speaker. Parliamentary speaker بوجعلي. I hope maaha. Hope ورجدا. And أرضي عبد الشكور الله هذا. I hope إن شاء الله. Okay, thank you. I hope إن شاء الله باتل ما شاء الله. Okay. I hope إن شاء الله. أنا we hope too for you. مركا أرضي هاي لوينا شجريسان. Do not forget. And فايسة وحتري my post. So me too my day soon. Thank you very much. أدبض ما سنتاي. And إلهي مهدي وين هرت الحمد لله رب العالمين إلهي وحس ما هذا اللي هرت سكين كأني إن شاء الله إني نكلا فايدة سنة أنا جي أديك me and you my dear students مركا إن شاء الله سؤال صدحات بينو قد بينا هادو أرضي favorite مركا صوبت عنو let's talk about وحويان أرضي الصومالي ذا أما أرضي ذينا أما دمان أرضي الصومالي ذا وحي تعين English كأني كوهلان only 10% only 5% out of the 100 ayaa ku hadasha. You know why they speak? You know why they don't speak? The reason is they don't talk. It's okay if you talk to themselves. Hadda isla hadashay adiga wax dhib male mobilka qaado iska duub wax ceeb ma laha. You're doing it for yourself. Adiga isku sameynaya. You're doing it for yourself and anything that you do for yourself is good for you. Adiga ku wanaagsan tahay. Marka talk waxaan u soo qaadanay maanta waxa weeyaan inaan niga hadashay. I know I can't hear you kuma maqlaayo. What soo qoraysa that's really good laakiin I want you adigan rabaa inaad hadhow tole to talk inaad hadashid. For example book ku qorta haddaad rabtaan iminka book ku qorta ama mobilkiina ku yar qorta mobilkiina ku qorta ama screenshot ka qaata hadhow tole ka hadal. Talk about your favorite hobbies talk about your hobbies hobbiga ka hadal. Talk about so marka just imagination soo saar af ingiriiska hadhow tole haba khaladid ba. We all make mistakes. We all human beings. بنادم بين الحيوان وخضنا وحياله وانسنا دافنا عيب ما عيدي كوكو قصلي ميزة. Especially education. وحبرشاد هرت عيب ما لها بيضو. عيب ما لها با. كون شاركو فوقع. هذانا هادو تل what do you want? We want to be the succeeders. وحين دوننا كو قولي ستا هادو تل إن شاء الله أرضي ذا. مركز تلادي وحكا قاتا. هرتو متبني قطع لقلني أصابت وحويا demanding فريمي هنا ما وضع آخرين كري one time. I am really sorry. But I would love to want challenge على آخره مركا أرضي شجرية فيديوغا and also comment جرية صوبته أو في عنتها. The more you comment the more engagement we get my dear student. Okay هذا بانو أجنو صح بيتري أمينة على يس يجي خالي هذا بيان عبي أرضي ذا قالي. هاي ود ما حسنتني أرضي أنت تسوي سين thank you very much. Let's talk about it. أنو كوضح حضرنا. مركا من حين السعوني سؤال صدحات أو negative. سؤال صدحات ومعي negative. كوا كلام هاين positive. لكن تن we must see negative. I don't. وين أركا قرال كينا. إني كوا قرال I don't like this. I don't like them. I don't like this. I don't like those. I don't like these. I don't like that. أيان ربينا إن كوا أركا قرال كينا don't negative ما ربينا كوا أركا. positive بنكو أركي لكن حتى وين negative كو أركا. Talk about واحد كهذا شيء something something شيء you don't like وحنا شعلين something that you don't like. I don't like first of all talking about other people. أنا متشعلرتنا ضد كلا كهذا. I don't like talking about people. I don't like lying to people. And even though people lie but I don't like to lie somehow. And basically what else do I don't like? What else do I don't like? There's many things that we don't like, but alhamdulillah, what do you أدوم حيدان شعلين محاتري and Amira حتري I don't like this. أنا كلمة شعلي I don't like that. I don't like it. What do you don't like? You don't like the lesson? You don't like this? What do you don't like? ما وحكو دوّانا شعلين. So وحكافو this is that but استعمال شيء. Demonstrative كاس وحنا قلت المامتة this is that. marka bintu maxamuud cabdullaahi okay baa tiri xageed joogtaa company wuxuu yahay assalaamu calaykum wacalaykum wassalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ardayda sharafta badan leh welcome to language college hargeysa here talking to you teacher warsame we are in a life lesson basically we are talking about let's talk about it aynu ka wada hadalno talk hadal the more you talk the more better you get your English the more you, basically if you train a lot hadaad tababarka badisid maxaa kuu badanaya xifradda kuu badanaysa mar walbood tababarka badisid xifradda ayaa kuu badanaysa the more you do exercise the more stronger you get so marka the more you talk
the more your English, not mine, your English, it gets better. Even though if you were like a native person or a person that you learn English, if you don't speak English for a while, somehow you forget the language. It's because the brain, maskaxda ayaa fadhiisanaysa. Haddii aan luqadda aanad ku hadlin asliyan, luqaddii baad ilowaysa. Waayo maskaxdii baa fadhiisanaysa. Somehow maskaxdaa fadhiisanaysa. Haddii maskaxdu fadhiisatana, shaygii qofkii waa ilaawaa. So marka, keeping the brain active is the most important part. magaciisa casharka magaciisa waxa let's talk about it. Ka wada hadalno. Abdurrahman Hassan wuxuu yidhi, I don't like the people who don't believe their lives. MashaAllah. MashaAllah. Ma jecli buu yidhi dadka aan aaminsanayn naftooda. If you don't trust yourself, then you won't trust anyone else. If you don't trust yourself, if you don't believe in yourself, that you can do this or do that, then you won't believe in nothing else. waxba qaban kari maysid. If you don't believe that you can't change your life, haddaan noloshaada bedeli karin nin xun haddaad ahayd oo qof wanaagsan aad noqon karin weligaaba ninkaa xun baad ahaanaysaa. If you are a good person and you want to be more good, you want to be more better than you are, you have to do more. So marka, that's really good. Aad baan kaaga taageera. Don't like. Hey, my English, I want to listen to you. Amira, you want to listen to me? Thank you very much. Thank you very much, my dear student. Aad baan kaaga mahadcelinaya. Jazakallahu khairan. Ilaahay raaliha ka ahaado, my dear student. Muhammad Sheikh Ali, I do know, I do not like the problems in the world. Muhammad, the problems in the world, the problems are already made in the world. Dhibaatada adduunyada u samaysa, adduunyada u samaysa. Mahmahadas oo ay tira adduunyada dhibaato u samaysa. The world is made of problems. Iyadaaba dhibaato socota. Marka Ilaahay muxuu yidhi subhanahu wa ta'ala ku xamdiya. Alhamdulillah for what I have, alhamdulillah for what I don't have. Alhamdulillah waxaan haysto, alhamdulillah waxaanan haysan. That is the cue, what the weather for the problem of the world. So marka waxaan adduunyada aanu arkayno is not us. Anagu ma lihin ba. First of all, the energy of the light, the things that we use, the air that we take, the peace that we have, the non-peace, all this stuff, it doesn't belong to us. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa iskale marka hadduu kaa qaado, alhamdulillah isaga he will provide. Dib buu kugu soo celin wax ka wanaagsan. Abdurrahman waayahan ku socono. Ibrahim Saeed wuxuu yidhi, I don't like troublesome. Is it tourism? But that you don't like troublesome or you don't like tourism? Okay. Hadday sharafta badan in yariga raali hada xagaasi هيا أنو كير سعنا وين وضعنا إن شاء الله بإذن الله. إلهي خير هرتا أنو قد قارتي شرفت بدن له. حمد محمد نروح موحة وجوابيسة كوا هاللاية لغته. Okay, I don't like Christian. Okay, that is a religion. ودين تاسي وحتى إن هند أختار بعد. I don't like Christian. And Aisha, حمد سؤال هذا ما فهمين. ما حد قلت شيء. ما واحد وجوابيسة كوا لغته كوا هاللاية. I don't really understand that. All I know is that we are doing a lesson, which means talk. No, how we have English. كوا هذا أنت بدن مركا. We are trying to speak English. So marka arday 10 baro barna waxa weeyaan basically Somali oo macalinkiina waa macalin Somali ah. Amina waxay teacher, you are hardly see my writing. I don't know why. Amina iga raali aho my distant ma qoraal baad soo qortay bal aan dib ugu baxo. I agreed by to what ila agreed garaysa. Amina horta xagaasi you agreed somehow with me. Alhamdulillah, thank you very much for agreeing with me. Ma mid kala soo qortay. Okay, arday sharafta badan. I don't like to lose my team. Abdul Shakur, I don't like to lose my team. Your team is very, very important for you somehow. So, alhamdulillah, you may not lose them. I don't like talk about other people's affairs. Affairs what alhamdulillah hadanad ka hadlin. I don't care what other people believe in myself. Abdurrahman, I don't care. Anigu waxba igama basarna. Other people dadka kale believe in aniga waxay iga aaminsan yihiin. Waxaad ku tiraahdaa waliba you can add more. Waxna ku daradhay waliba. You can add more. Wax ku sii daradhay waliba. Idii wax ka xumaadaan. Muhammad Ali wuxuu yidhi Ibrahim, I don't like a lot food. Cunto badan ma jecli. Why? You getting fat? Maad ku bunaanaysaa. Amir waxay tiri I live in London but I'm a mother. MashaAllah. Allah ha ku barakeeyo. Haddaad hooyo tahay Allah ha ku barakeeyo. Ubadkaagana Ilaahay ha ku barakeeyo. I don't like swimming in the rivers. Ma jecli inaan dooxyada ku badaasho umballaagyada. Waxay daacad baa yidhi wacalaykum asalaam haddii student waan salaamayaa. Amina maxay tiri it's okay.
مرحبا من aad baan kaaga raali gelinaya sidaan hore ugu sheegay ardayda way badan yihiin I want to talk to all the students but somehow I can't bilaadan baan wixii lama wada hadli karayo anigu waan jeclay wallahi inaan la hadlo dhammaantiin oon inii wada jawaabo but I'm really sorry and aan ugu gudubno su-aasheena ugu dambaysa alxamdulilah waxaynu soo gaarnay su-aasha ugu dambaysa alxamdulilah ilaahay mahadii weeyaan oo kow oo laba oo saddex si fiican nagu soo dhameeyey ininkuna aad wax ka fahanteen ta afraad baan u gudbaynaa talk ka hadal baa lagu talk about waxaad ka hadashaa something tanaysa soo galaan something waxaad wax ka hadal you adiga like to read adiga maxaa jeceshahay haddaba inaad akhrisaan meesha lagu kala baxay waa meeshan ardayda barobar waxay odhanayaan qur-aanka ardayda barobar waxay odhanayaan buugaagta marka kuwa qur-aanka yidhi alxamdulilah qur-aanka waanu garanay waa dee 114 suuradood 114 suuradood weeyaan laakiin kuwa yidhaahda buug baan jeclayna akhri buugaas waa kee axaadiistiiba ma waxa weeyaan buugaagtan philosophy ma waxa weeye theology ma engineering ba what kind of books do you like kolayba buugaag baad oran doontaa waan garanayaa laakiin waa kuwee I like hilibka ariga masha Allah ayuu wuxuu yidhi I like hilibka ariga jeceshahay alxamdulilah ku barakay hilibka ariga insha Allah knife baad qalan doontaa Mohammed wuxuu yidhi I don't like football anu kama helo kubadda why be a sportsman what do you like to be do you like to be a gym ma gymka jeceshahay thanks Mohammed waxay tiri Hamdan Nuur waxay tiri thanks dear teacher Hamda adiga mudan kun shar adiga mudan Abdurrahman Hasan thanks for your teaching adiga mudan my dear student for watching me adiga mahadsan oo aniga ay daawanaya وعليكم السلام macallin warsan ciilo love daryeel وعليكم ورحمة الله وبركاته and I like to read my stories what kind of stories do you like Shakul I would like to read my stories my statue what kind of stories do you like statue stories or normal stories the old stories of Somali traditions hinda waxay tiri cashar adag noo soo gaali macallin insha Allah casharkan waa iska adag yahay isaga laftiisa waayo wuxuu adkaan lahaa haddii aad hor taagan tahay kumaad hadasheen laakiin imika waxa laga yaabaa inaad qoraalku ku fudud yahay laakiin when it comes to talking I'm 100% sure haddii aan caadi ku maqlayo codkaaga aan baad ila hadli karaysid talk about them si fiican lamaad hadasheen I know somehow because students they are really afraid to talk but they are afraid to make mistakes I like to watch television okay waa miiro tiri baka hoosan yar degno ardayda sharafta badan leh Ismaan wuxuu I would like to read Holy Quran Ismaan Abdullahi aad baad mahadsantahay jazakallahu khairan Fatima waxay tiri I am like Quran read every time hatta min yar khalada kaaga jira Fatima waxay tiri I am like Quran read every time I like to read Quran every time basically you can't read every single time like in every day maalin walba ka fudude make it more simple yar fudude adiga mahadsan Amira adiga mudan my dear student thank you teaching for everything adiga mudan dhammaan arday sharafta badan leh ardayda qaaliga inta language culture geesa ka tirsan inta aan ka tirsanayn inta live ka daawanaysa thank you very much ininka mudan boqolkiiba boqol aniga maaha waa idinka it's not me it's you my dear student the most important part waa ininka muhiimadu waa ininka Ahmed Sadiq waad mahadsantahay adiga mudan my dear student middan waxaan isku wada raacnay inaynu quraanku jecelnahay we don't like reading and philosophies we don't like reading other books that talks about different kind of stories but we like to read the Quran subhanallah ila mahdi weeyaan quraankan akhrinayno waa alla mahdi thanks to Allah subhanahu wa ta'ala inaynu quraankiisa jecelno ilaahay noo soo dejiyay subhanahu wa ta'ala ardayay casharka kolayba gabagab uu taagan yahay intii ugu dambeysay waan mari doonaa oo waan ni akhrin doonaa marka I am going to do this one more time and then basically waan duu mari doonaa marka kolayba de su'aalihii ugu badnaa baan ka soo saari doonaa xagga marka alxamdulilah horta ilaahay mahdi tahay let's talk about it casharkeen wuxuu ahaa topigiisu let's talk about it oo waxa la oran karaa let us talk about it aynu ka wada hadalno maxaynu ka wada hadlaynaa talk about your hobbies waxaad ka hadashaa hobbigiina talk about your favorite city waxaad ka hadashaa magaalka aad ugu jeceshahay talk about something you don't like waxaanad jecleen ka hadal talk about something you like to read ka hadal waxaad jeceshahay
talk inshallah my dear students I hope you guys talk I hope my dear students in af English ku hadlaan horta inagu duceynayna luqadan ku hadashaan many thing waxyaalo fara badan baa inaga xiran kolayba waxbarashadeena educationka doofka waxyaalahaas oo dhan kolayba inaga xiran yihiin even if you go to another place we speak in English so marka alxamdulillah horta waxaan ilaahay ni bari horta inaad iska barataan so marka kolayba daashka gabagabadiisa la taagan yahay waa aniga macallin warsamaa waa galab wanaagsan horta dhammaan hanu hargeysan ku suganaysaan hore inagu sheegay hargeysana baryahan waxay iska yar noqotay sidii dibadahoo kale oo roob un baa soo socda alxamdulillah ilaahay baa cirka dhulka iska leh and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala and he talking to his teacher warsame this is the end of the lesson waxaan soo gaarnay dhamaadkii casharka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aad baad mahadsantahay ardayda sharafta badan leh